wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Marwo Hinda Jaamac Xirse Hindagaani ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay dalka Sweden. wasiirka oo safar shaqo ku timi qaaradda Yurub ayaa waxa soo dhaweeyay safiirka Soomaaliland ee dalka Sweden Ambassador Sakariya Xasan Wacaise iyo gudoomiyaha dalada guud ee jahliyadaha Soomaaliland ee dalka Sweden Master Mustafa Ismaaciil iyo guud ahaan jahliyada dalka Sweden. wasiirka ayaa muddada ay ku sugan tahay dalka Sweden waxay la kulmi doontaa xukuumadda dalka Sweden iyo jahliyada reer Soomaaliland ee Sweden oo ay uga warrami doonto xaaladda guud ee dalkii. waan soo dhaweynayaa dhamaantii waan soo dhaweynayaa si gaar ah waxaan soo dhaweynayaa wasiirka qaaliga ee hablaha noogu tirsan Hinda Jaamac Gaani walaalo soo dhawow. waxaa sharaf weyn inoo ah inaan maanta ku soo dhaweyno wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Hinda oo aan ku soo dhaweyno caasimadda Stockholm Arlanda Airport. waxaa halkan uga mahadcelinayaa shacabweynaha reer Soomaaliland ee halkan isku wada yimid anoo ku hadlaya magaca xisbiga kulmiye iyo anoo ku hadlaya magaca shacabka Soomaaliland gaar ahaan reer Stockholm. waxaan aad iyo aad u leeyahay Hinda walaal soo dhawow. mudane wasiir waxa maanta halkan soo dhaweyntaada iyo booqashadaada ku dhan si diiran kugu soo dhaweynaya caasimadda Stockholm ee dalka Sweden. dhammaan jaaliyada reer Sweden ee runtii halkan isugu yimid iyo runtii madaxda sharafta leh iyagana halkan jooga xisbiga kulmiye ah iyo safiirka dalka Sweden Sakariya Xasan Wacaise oo isna maanta runtii nala jooga iyo runtii madaxda kale aad iyo aad u sharafta badan sida diiran runtii aan kugu soo dhaweynay inkastoo meeshan ay iska qabowday dalkani laakiinse waxaan jecelnahay runtii wasiir aad baan kaaga mahadcelinaynaa booqashadaada noogu timid wax badan waan ku sugeynay ilaahay baa runtii maanta qadaray inaad halkan timaadid aad iyo aad baan runtii aan ku soo dhaweynaynaa wasiir waanad mahadsantahay. bismillaahi raxmaani raxiim farxad bay tahay inaan idinka soo qayb galo soo dhaweyntan weyn aad ku soo dhaweynaysaan wasiir Hinda oo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland. ruuxantii aniga si gaar ah bay iigu tahay muhiim dalkan aan ku noolahay Sweden waa markuu horeysay wasiir dumar aan soo dhaweeyo haween aan soo dhaweeyo ku soo dhawow baan leeyahay Sweden. kan Hinda waa dal unique oo ka duwan adduunyada kale 50% in ka badan baarlamaanka Sweden waa dumar xukuumadda wasiirada dalkan ka jira 50% in ka badan waa haween ka soo dawlad wadaagtay haddana haween bay u badan yihiin dadka ugu sareeya dalkan magaca ku leh Sweden waa dumar. anigu dalkan xusbiya ka jira waa dal dimuqraadiya 8 xusbiya ka jira 4 kamid ah haween baa hogaamiya aniga si gaar ah taabarta gudoomiyaha xusbigayga gudoomiyaha dhalinyarta xusbigayga gudoomiyaha haweenka saddexdooda waa dumar. sidaa daraadeed marka waxa la qiyaasay halkan la tijaabiyay in dumarka la tijaabiyo dumarka wax qabsan karaan. marka aad baan ugu mahadinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sida fariidnimada leh oo tusay in haweenka Soomaaliland meel sare ay qaban karaan boos sare ka qayb qaadan karaan. sharaf ay noo tahay haweenka sharaf u tahay kuwan dhalay sharaf u tahay kuwa wadakii jooga sharaf u tahay in booska culus qaban karaan wasiir inay noqon karaan halkan loogu yimaadaan farxad weyn bay tahay. wasiir Hinda dalkan wax badan aad ka baran doontaa adiga wax badan ka baran doonaa adiga waxaanu ka baran doonaa dal yar oo faqiira oo miisaaniyadiisu yar yahay oo 300 milyan uu yahay oo dadku ay amal laayihiin haddana dimuqraadiyad la sameeyay oo wax la doortay oo imkaan gobolkan ka yimid Fasmaland miisaaniyadiisa iyo dalka Soomaaliland isku miisaaniyada haddana waxaan fahmi kari waayaa saad militariga lacagta u siisaan saad booliska u siisaan iskuulada loo tagayo nidaamkaas waa nidaam doonayna in wax ka barano wax ka qorno waxaan aad sameeyeen midda kale waxaan ku soo gabagabeynayaa safar baan soo gashay halkan safaarad weyn baan ku leenahay safaaradda Imaaraadka Kuwait Soomaaliland baan la mid halkan marka la joogo waad arki doontaa dhismaheeda waxa suuro galiyay ambassadorka wiigu ugu dambeeyay imika Soomaaliland baa laga sheekeeyay tifiyada qaranku Soomaaliland bay ka sheekeynayeen aad baa dalkan looga bartay hawl badan baa la galiyay anagu dalahayn ka shaqeynaa laakiin way jiraan Mustafa iyo ambassadorkii oo dad dalka u shaqeeyo oo sida idinku dalka ugu shaqeeyo dalka u shaqeeya ku soo dhawow baan ku leeyahay ku si dheeraada ma jecli dalka waan kugu soo dhaweynayaa. bismillaahir rahmaanir rahiim mudane wasiir Hinda Gaani ku soo dhawow dalkan Sweden gacmo furan ku soo dhawow waxa ku taagan oo halka kugu sugaya wax weyn bulshadii iyo community-gii reer Sweden ka kooban xisbiyadii
dalladii iyo siyaasi xildhibaan xamse dhammaantiin horta waxaan u mahadnaqayaa intiinii maanta oo dhan halkan u taagnada wasiirka soo dhoweyntiisa inta aad halkan la joogna community-gana waad la kulmi hawshaan ku hayna halkan dalka ku haynana kullee waan kula wadaagi doonaa marka aad iyo aad u soo dhowo wasiir bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wabihi nastaciin calaa amuuri dunya wadiin safiirka jamhuuriyadda somalilan ee dalka sweden gudoomiyaha jaaliyadda xildhibaanka dacda yar ee dalka sweden jaaliyadayda quruxda badan habla iyo inamaba saxufigayga qaaliga ah ee reer stockholm in badan aan daawanayay warka uu soo tabinayo anigoo idinku salaamaya magaca jamhuuriyadda somalilan xisbiyada iyo jahliyadda dhallinyarada haweenka dhammaantiinba waxaan idin leeyahay waan idinka mahad celinayaa soo dhoweynta qiimaha iyo qaayaha badan ee aan qirayo iyadoo ay qaboojiro weliba barafku meel walba taagan yahay inaad ii tubnaydeen dhaxanta iyo qabowga aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin insha allahu raxmaan wixii kale waxaynu isku arki doonaa fadhigeenna ama kulamadeenna kale waan idinka mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba aad baad u mahadsantihiin barkhad cabdilaahi maxamed honkebel t v garoonka diyaaradaha erlanda airport ee magaalada stockholm ee waddanka sweden